siyaasi jaamac Ismaaciil Eega Jaamac Shabeel oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay kulankii dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu yiri halkii ay ku maqan tahay ama ay jirto qadiyada Soomaaliland ama cid wax ka xidhan inuu la kulmo waa wajibaadka madaxweynaha ka mid tahay وانا وحشقدي سي كميدا انو كل بعد سبب فرماجو او ولا هدوايا فرماجو waxba inay ka xiran laakiin waxa ayaan daraa waxa black out ka fikriska lagu yiraahdo marka mugdi la geliyo siyaasadii mugdi la geliyo waxa ka dhashay wax unpredictable oo la garanay iyadoo kulanku uu ahaa kulan sax iyo hadii wasiirkiisa khaarijiga wuxuu kaga hadlay aynu maqlayn iyo sidoo uu sheegay diyaar caruurta loogu warramay ilaa yara caruur waxa loogu warramay isla soo taagay mikrofon ilaa waxba warramay baa la qaadan lahaa ay iska dhaafo oo aan laba hadal warbaahinta ee loo qaadan lahaa intuu ku warramayo warka raqiiska noocaas soo sir kharjiya waxa kale inuu ognahay in aanu joogin shirka oo shirka qayb gelin sabab soo hortaaga ma jirno beenta u sheegaa warbaahinta madaxweynuhu hadduu la hadli waayo inuu iska tagaabay oo la hadal way ma uu joogin muxuu ka hadlaya meesha wax lagu hadlayo uu joogin muxuu sheegay soo sheeka caruureedan inuu la golay imaado ma oo deetar iska dhaqaaqo diida xitaa su'aalo in la weydiiyo aad buu khaldamay wasiirka khaarijiga maalintii waxa la galay wararka xamariyo wararka madaxtooyada iyo la galo wararka farmaajo baa socday war uu leeyahay ma socdaan ayaan dar in media laga qabsado oo kulankii ay isay farmaajo laxmar وفرماجة ميديا كقبصنا وغير سوماليلاند أي كتيرانون وبسايد دي كوفرته يقول كم الاحتلال كوفرته يبحث صباح أو باريس تاج كتيران وهالك أكون مشغولان وحمر ورك لقى دور هالكم يصور كسيلة وأيام دشوي بحاول يضل ولا هذا وين أبنها فرماجة موقف السوماليلاند كتاجنا يضع حبل وهالشيء هو هذا الكوريين وهالشيء سكوريين هذو إيربور كاكسودي معناه يحوي أو كوبان ولمات كي قرني من السوماليلاند ولما هذا وركات دوني ذا عند بو أضرون يسان الاعتراف أنا ما تريسو عند بو أدونك اعتراف كان يسين سالم ما تريسو فرماتنا وحدو شعب ضيس إنه Soomaaliland madaxweyne uu yahay muusana uu yahay barasab ama maamul goboleedka baydhabo oo kale uu la mid yahay ayuu shaabadeeyay siyaasiyan waxa uu macnoobaysaa oo u dhacaysa maamul goboleed inaynu nahay farmaajo uu yahay madaxweynaheena muusana uu yahay madaxweyne maamul goboleed markuu halka ka soo digo iyadoo wax lagu heshiiyay jirin وهذا الآن وتشرين وهرجيسا ولحم شاحو أوتوماتيكلي يسقط الحوينة هلو ويوتش ليسا هلو مركع عيال كل عضو أيه وتوتش ليسا وترسى من الموذيني سلاي لقطية ولا خيامي ما أنت اللي تشوقه تلا ما تيجوك تبريه هدي سودو تلا فريق وبيشوت ما أنت نشوفنا ما أنت وذا هذا الآن يهشيس الآن أبي أحمد باول أبي أحمد باول أبي أحمد باول أبي أحمد وريت الوزراء إثيوبيا حليل ولا اجتماعي لقى الحياة وين الصلح تشرينا وين ونا تشرينا لكن قد يدينا تقول من هو وكيلنا أبي أحمد
siyaasi jaamac shabeel haddiiba ay dhacdo in madaxweyne farmaajo uu Hargeysa yimaado shacabka reer Soomaaliland maxaa u bannaan والله بالله تالله وأهل بس إيمانك كيسا مرك هراء وحول بهرت أي لمالية شعب كنا أسقط حكومة الكل دي أيها كل عيسى وإسخلاف في دونا ويقيم سم دونا بوق بدن باكر لان دونا وحكنا لان دونا بوق نتيجة سلينا نقطه قبل لماadkii sheegashadii Soomaaliland waxa dhici doonta in qaar caalamka Soomaaliya qaataan maalinta oo la soo baxo caalam oo Hargeysa qulada laga soo baxo ee gobolada dhan laga soo baxo uu iibi marka qadiyadii uu lumiyo waxay qadiyadii way dhamaatay Soomaaliland way dhamaatay si tii lixdankii ka darbaynu ku tageynaa tii lixdankii ka daran aynu ku tageynaa horta markii unaadkiisu uu soo afjaro itraaf raadintii ee bil aadan ilaahay abuurtay naga dhageysanayo dambe halna la aqoonsada aanu jirin waxa ay soo mahawl markaa xamar loo kala dheereeyo xamar loo kala dheereeyo baahna taana de waa dhacaysan soo degay lana soo baxo caalamka Soomaaliya Hargeysa laga soo baxo awda laga soo baxo Burca laga soo baxo magaalo walba laga soo baxo caalamka Soomaaliya ساعدها محمد دولة موسى هيسكوك على ساعدها دي برسالة ومحمد حسين إبراهيم زمن يوستي في مقالة هرقيسة.